hitler markaa micyaarkiisani wuxuu weeyaan inay kulmaan awoodda aragti dejinta iyo nidaamka iyo philosophy inaad dejiso iyo awoodda hoggaaminta iyo inaad zaciim noqoto iyo awoodda hadalka iyo dadka afkaartaada inaad gaadhsiin karto saddexdaasi inay kulmaan buu leeyahay hitler waa wax aad naadir u ah waa wax aan nolosha inta badan lagu arag haddaba brofesor raw baa markuu masalada hitler ka soo qaatay wuxuu leeyahay haddaba saddexduu hitler yidhi waa naadir qof ay ku kulantaannu haynaa buu leeyahay saddexdaasoo qof qudha isugu tegey saddexdaasiba waxay ku kulmeen buu leeyahay rasuululislaamka diin iyo mabaadi' cusub la yimi hoggaamin la yimi khatiib mufawahoo dadka wuxuu rabo gaadhsiinayay buu leeyahay waana buu leeyahay في شخص رسول الإسلام رأى العالم أندر ظاهرة على وجه الأرض بيقول قفك إسلامك هجاميني أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحويان بيقول أندر ظاهرة ومقالك أغو دفئي النادر سن دولك كركي سلغو أركي ديق يلفك سما يسنبو لي يسدح ذا شيء وضوطه يعني فيلسوف كان يقول لي قف ديق يلفك سما يسن وبناء آدمه oo saddexdaa shay isku wata muxamed baanu aragnay buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika ba wuxuu tilmaamayaa buuggaygan markaan qorayo buu yidhi waxa igu adkaatay inaan nebi moxamed oo dhan ka warramo buu yidhi laakiin waxaa laga yaabaa buu yidhi waxoogaa sawirraa inaan idinka siiyo un muxamedkii nebiga ahaa muxamedkii dagaalyahanka ahaa muxamedkii rajulul acmaalka businessmanka ahaa muxamedkii rajulu siyaasiga ahaa muxamedkii khatiibka ahaa muxamedkii muslix ijtimaaciga ahaa muxamedkii agoontu ay ku soo hoyan jirtay muxamedkii addoommaha xorayn jiray muxamedkii dumarka xoreeyey muxamedkii qaadiga noqday muxamedkaasi buu leeyahay taariikhihiisa wax yaroo ka mida baan idiin sheegayaa buu leeyahay buugga kan markaan qorayo ee nebi maxamedka naadirkaa kama warrami karayo يعني wuxuu ka cudur daaranayaa inaanu soo wada bandhigi karin nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jawaanib alcadama qaybaha weyne uu leeyahay ayuha alaxiba filosofkii ingiriiska ahaa ee thomas carlyle lo odhan jiray thomas carlyle waxa uu ka warramayaa cibaadat alabtaal buggiisan la yidhaahdo weynida ama batalnimada la caabudo dabeetana noloshuu qaybqaybinaya midba meesha uu ku wenyey calaa kulli xaal wuxuu leeyahay diin marka aan ka hadlo ama rijaalka diin hoggaamiyey marka aan tilmaamo buu leeyahay moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan shaki ku jirin buu yidhi acdam inuu yahay dadka diin lagu tilmaamo inuu ahaa buu leeyahay muslix weyn oo aftahana oo geesiya oo mufakira oo sifaadka bini aadam lagu ammaanoo dhan le buu yidhi waxaana ammaantiisa kuugu filan buu leeyahay inaad qur-aankiisa akhridoo qudha waa gaal ingiriis ninka warkan qoraya walidaalika ayuha alaxiba senrostan alasuuji waa swedish ومستشرق سويدشة قرن سقالية تبناد نولا أها أستاذ اللغات السامية بروفيسور لغات السامية دائرة المعارف كان رجي وحبضن قيب قاطعي كامدة أيا وحو ليه هي مؤلف كتابه كجور رمي قرآنك إيا بايبلك القرآن الإنجيل المحمدي بوليه قرآنك وبايبلك النبي محمد إيا بوك لو تاريخ حياة محمد ليلاه وحليه هي مستشرقة سوريش كاهي ومينن عدالة سمين النبي محمد هدينو إنكرنا بيري وحي والصفات ووين لها هدينو إنكرنا إيا تلمامها الغد دوران كربنا آدم ولها بولي هدينو إنكرنا وحي كم مرخاتها تهي بولي نينن عدالة سمينين ويا بيري النبي محمد دقال نولولات بو قلي بولي ولا قلي جهلقة iyo hamajinimada waanu ku adkaystay mabdiisa ilaa iyo uu keenay buu leeyahay shareeco akmalu sharaa'ica
waa shareecada maanta ragga badhay rabaan inay yidhaahdaan waa shareeco mutawaxisha ayuu ninkaa swedishkii wuxuu leeyahay fa asbaxat shariicatuhu akmala sharaa'ic shareecadiisi waxa weeyaan buu leeyahay shareeco la dhigo ta ugu fiican ama ugu dhammaystiran wa huwa fawqa cudamaa'i taariikh buu yidhi dadkii waaweynaaye taariikhdu sheegtay oo dhanna wuu ka sarreeya goote waa taqaaniin goote waa shakespeareka jarmal ummadda afka jarmalka ku hadasha halka shakespeare ugu jiro dadka afka ingiriisiga ku hadla ayuu gooteena ugu jira weliba goote shakespeare waxyaabo aan gabayga ahayn buu geli jiray gooteeye uu dheer yahay goote baa wuxuu leeyahay haddaynu reer yurub nahay buu leeyahay wax allaaliya waxaynu afkaar hayno oo dhammi ma gaadhaysa buu leeyahay tuu maxamed gaadhay waa gootee baa wuxuu isbarbardhigayaa aaraad iyo afkaarta reer yurubka iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dunida keenuu isdhinac dhigaya deetana wuxuu leeyahay haddaynu reer galbeed nahay mafaahiimteennoo dhammi ma gaadhayso ilaa maa wasala ilayhi moxamed wa sawfa laa yataqadam calayhi axadun buu leeyahay mustaqbalkana ma filayo cid dhaafi doonta inay jiri doonta buu leeyahay waa gooteegii jarmal walaqad baxadtu fi اtaariikhi can muhal aclaa lihada alinsaan bu taariikhdoo dhan baan waxaan baadhay buu yidhi bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo waxaan helay buu yidhi nebi moxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sidaa awgeed buu yidhi waxaa waajiba inuu xaqu muuqdo oo korreeyo sidii uu moxamed u korreeyey ee uu dunida kelimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahy waa gabyaagii riwaayiga ahaa ee faransiis ee jarmal ee macruufkii aad taqaaniin dadka wax qoraa aad bay u badan yihiin laakiin waan koobaya waxaa jira gabyaa kale oo jarmal ah oo faransiis ah waa alfonso de lamartine alfonso de lamartine waa nin politician siyaasi buu ahaa oo second republickii faransiiska raggii qaybta weyn ka qaatay buu ka mid ahaa gabyaana wuu ahaa dabeetana wuxuu rabay inuu wax ka qoro buug buu leeyahay taariikhda turkiga ah turkigu wax ka qorayey maadaama uu turkiga wax ka qorayay waxa qasab ku noqotay turkiga dee diinta ay haystaanna inuu wax ka qoro uu milicsado dabeetana markuu akhriyey taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa 14 sano kadib muxaadaraadkii carlel uu jeedinayay kadib weeyaan markuu akhriyey ayuu wuxuu yidhi bini aadamka ama qaadada hormoodka bini aadamka kriteriyaan u dhigayaa buu yidhi aynu ku qiimayno oo saddexa bal ninkanna kriteriyadiisa dhegaysta wuxuu leeyahy waxaan ku qiimaynayaa 3 shay kow greatness of purpose laba smallness of means saddex outstanding results 3 shay baan wax ku qiimaynayaa buu yidhi qofka bini aadamka ahi inta ay sarraysay barbowskiisu himiladu raadcaynaya inta ay leekayd oo nebi moxamed himiladiisu maxay ahayd wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas baa ilaahay ku soo diray bini aadam oo dhan baan kuu soo diray baa ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam bini aadam oo dhan inuu hoggaamiyo yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir baa lagu yidhi idan wuxuu leeyahay qofku inta uu ka fakeraya ama iskoobka uu gaadhsiisanaayo aragtidiisu ay ku socotay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilaahay ku tilmaamaya kan labaad wuxuu leeyahay idan nebi moxamed universal buu ahaa waxa uu ka fakerayay caalamkao dhan baa ilaahay u soo diray jin iyo insigiisaba kan labaad wuxuu leeyahay smallness of means awoodda uu haystay inta ay leekayd dee nin maalan maanta ninka dawladda maraykan xukumaa dee wuxuu haystaa miiniskii dunida ugu ballaadhnaayo nin madaxa gacantiisa gala hadday dhaqaalo tahay hadday hub tahay hadday dawlad tahay hadday technology tahay hadday dunida ciddii hoggaaminaysu maamulaa ama isagu ninkani qofku qiimaysanaya waa maxay qofkan waa inuu wuxuu haystayna inay wax yar noqdaan nebi moxamed markaynu eegno calayhi salaatu wasalaam
dee wasaa'il dhaqaale ma haysan cidi lama soconin inan yaroo agoona oo meel cidlaa ku soo koray tolkiya dadku ka dhashay meel saxaaroo lama degaa bay joogeen carabi magac iyo maamuus dunida kumay lahayn labada dawladooda waaweynee dunida ka taliya midnaba may ahayn yacni waxay ahayd uun meel bini aadam degan yahay meesha ugu dambaysa ee la tilmaamo ayay saxaara alcarab ahayd markuu nebi moxamed ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad ee la martiin wax ku qiimaynaya waxa weeyaan waa outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey siday u weyn tahay nataa'ij raa'ica yacni nebi maxamed wuxuu leeyahay taariikhda bini aadamka haddaan saddexdaa shay ku qiimeeyo qof himiladiisu weyn tahay waxa agtiisa yaallaana ay yar yihiine awoodee u haysta midhaha uu dhaliyeyna uu midho caalamiyo aad u ballaadhan yahay markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay buu leeyahay qofka ugu mudan bini aadamkee la tilmaami karo masalada uu ninkani sidaa u tilmaamay waxaa tacliiqinaya bosworth smith benyamin bosworth smith waa bishop maraykana buug buu leeyahay la yidhaahdo uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaga warramayo dabeetana wuxuu leeyahay moxamed buu yidhi laqad kaana alqaysara waalbaaba ninkani waa bishop markaa labadii uu yaqaanay ugu awood badnaa buu isku daray nebi moxamed wuxuu ahaa buu yidhi qaysar iyo baabahoo la ysku daray buu yidhi yacni dawladihii romaniska boqor dawladda hoggaamiyo qaysar la yidhaahdaa jiray iyo dee boobkii katoliga moxamed wuxuu ahaa buu yidhi labadaasoo la ysku daray laakiin haddana bal u fiirso laakiin buu yidhi muu lahayn lakinahu kaana baaban biduuni khuyalaa'i albaabawaat baabo boob aan lahayn buu leeyahy isla weynida boobabku ay leeyihiinna ma lahayn buu leeyahy rajul mutawaadica buu ahaa si kale markaan u eega buu yidhi waa qaysar biduuni juyuushi alqayaasira wa biduuni jeyshin muta'ahab wa biduuni qalca wa biduuni dakhlin haabit wuxuu ahaa buu yidhi qaysar ama boqor aan ciidan lahayn oo aan qalcada iyo castalis meelo dhufaysya wadanin oo aan xataa buu yidhi mushahar qaadanin mushahar raatiba xataa aan lahayn buu leeyahy idan wuxuu leeyahay nebi moxamed wuxuu ahaa qaysar iyo boob la ysku daray oo aan isla weynida qaysarkana boobkana lahayn wixii ciidan iyo xoog iyo xoolo uu qaysarku watayna aan wadanin buu leeyahy labadaasoo la ysku daro haddana aan intan wadanin waa wax cajab qaba saa daraaddeed buu wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mihaalka ugu cadiimsan ee bashariyada soo maray linardo ayaa isna wuxuu tilmaamayaa leeyahay moxamed ina moxamedan acdamu albashariya qaatiba asdaq insaanin wujida calaa wajhi اlardi buu leeyahy nebi moxamed waa qofkii ugu weynaayee dunidan soo maray waa insaankii ugu run sheega badnaa ee dunidan soo maray ayuha alaxiba waxa idinku filan soo ma ogadin united nationku inay leeyihiin kulliyad ku taalla talyaaniga toronto bay ku taallaa oo kulliyo leadershipka lagu dhigo oo leadershipka yacni united nationkeeda iyo dadka ka shaqeeya leadershipkooda sida ay loo hoggaamiyo ma filaysaa leadershipka ugu weyne loo dhigaa inuu yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo professor ingiriisi dhigo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam professorrada ingiriiska ugu caansan ee leadership ka warrama buug buu leeyahay la yidhaahdo qiyaadatu moxamed the leadership of moxamed uu leeyahay kaasaa laga dhigaa uu dhigaa united nationka qaadadeeda si loogu tareengareeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii idan marka ay noqoto cilmi iyo jaamacad iyo taariikh iyo bini aadam waxbaadha iyo dad insaaninimada bini aadamnimada ay qiimo u samaynayso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa hormoodka bini aadamka walidaalika ayuha alikhwa hanis kong nin la yidhahdo switzerland u dhashay doctora waa caalim lahuut theologiana ayaa wuxuu leeyahay taariikhdoo dhan baan baadhay
anoo ka baadhaya bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo nebiga carbeed ee moxamed un baan helay buu yidhi qof bini aadam tusaale u noqon kara dadka aan tilmaamaya waa dad background kala gedisan leh qaarkood wadaadda diimeed ay yihiin qaarkood taariikhyahanna ay yihiin qaarkood ay jananno iyo casaakir yihiin qaarkood ay usaatida jaamacadeed yihiin qaarkood ay physics iyo science isku shaqo leeyihiin waa dad background kala gedisan leh laakiin isku dayay inay ka warramaan bini aadamka yaa uu noqon karo hormood yaa magac iyo maamuus yeelan kara encyclopediahan ingiriiska daa'irat almacaarif albaraytaaniya maadada muxamed haddaad baadho waxay leeyihiin muxamed ibnu cabdillaah mu'asis addiin alislaamiyi wulida fii maka maxamed oo ina cabdilaahiyo ah bay yidhaahdeen diinta islaamka kii aasaasay waa iyagu say u dhigayaan wuxuu ku dhashay magaalada maka tacbiirka ku xigaa waa maxay وقليلون هم الرجال الذين أحدثوا في البشرية الأثر العميق الدائم الذي أحدثه محمد بيداده encyclopediaha ingiriisku wuxuu leeyahay waxaa yar bini aadamka dhexdiisa in lagu arko raadku nebi maxamed nolosha ku sameeyey wax ku sameeyey bay leeyihin waa their encyclopedia ayaa saa tandhigaya thomas carlinle wuxuu leeyahay waa shihaabun qad adaa dunya waa holac ama iftiin dunidoo dhan ifiyey buu ku tilmaamaya ayuha alaxiba hadday noqoto weedhaha bini aadam yidhi inaan soo naqliyaa aad bay u tiro badan tahay laakiin waxaan rabaa inaan iska daayo weedhaha bini aadamka oo aan idiin sheego waxa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay nebi moxamed waa rasuulkii ilaahay rasuul macnaheeduna waxa weeyaan waa ku ilaahay intuu doortay basharka uu soo diray nebi moxamed wuxuu gaar ku yahay rususha kale waa la iska soo dabadiri jiray rasuul walbana waxaa loo soo diri jiray qoom gaara nebi moxamed kow waxaa la yidhi rasuul dambe laga soo dabadirayaa ma jiro diintiisu mana sakhmayso laba qoom gaara looma soo dirine bini aadam oo dhan baa loo soo diray saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya inuu maa dalla saaxibukum wamaa qawa hadday tahay noloshiiyo ahdaafta kama lumin hadday caqliga iyo ra'yiga tahay ma lumin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maa zaaqa albasaru wamaa taqa ishiisu waa mid akhlaaq wadata mid xadgudubta maaha baa ilaahay leeyahy alam nashrax laka sadrak maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa laabtiisa waa midaannu ballaadhinoo sharaxnay baa rabbi ku tilmaamaya warafacnaa laka dikrak magaciisaannu kor yeellay baa ilaahay leeyahy callamahu shadiidu alquwa jibriil baa u macallinaa ilaahay tilmaamaya wainnaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq fiican baad ku sugantahay baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd kuwani waa rusushii oo badhba badh baan ka fadilay baa ilaahay leeyahy rususha marka laga yimaado basharka kale basharka rusushaa u mudan rususha lafteedaa kala mudan haddaba rususha kale oo dhan nebi ibraahim baa u mudan bal u fiirsa qur-aanka nebi ibraahim ilaahay buu baryayaa wuxuu leeyahay maxay walaa tukhzinii yowma yubcahuun ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yowma laa yukhzi illaahu الnabiya wاladiina aamanuu macah nebi ibraahim mixnadiisii buu ilaahay baryayaa wuxuu leeyahay xasbiya allah nebi moxamed sida ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy yaa ayuha الnabiyu xasbuka allah nebi ibraahim wuxuu leeyahy wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin ilaahu kuwa dambe magac iigu reeb nebi ibraahim nebi moxamed sida ilaahay wuxuu leeyahy warafacnaa laka dikrak nebi ibraahim wuxuu leeyahy wajunubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahu anigiyo intaan dhalay inaannu sanama caabudno ka fogee nebi moxamed sida ilaahay wuxuu leeyahy innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum alrijsa ahla albayt wayutahirakum tahiira nebiyullaahi muusa wuxuu leeyahy rabbi sharax lii sadri ilaahayna nebi moxamed wuxuu leeyahy alam nashrax laka sadrak nebi muuse wuxuu leeyahy wayasir lii amri ilaahayna nebi moxamed wuxuu leeyahy wanuyasiruka lilyusra nebi muuse wuxuu leeyahy uxlul cuqdata min lisaani ilaahayna nebigiisa wuxuu ku leeyahy fainnamaa yasarnaahu bilisaanik nebi muuse wuxuu leeyahy wacajiltu ilayka rabbi litarda ilaahayna wuxuu leeyahy lacallaka tardaa baa moxamed lagu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam idan alxasan ibnu اlfadl baa wuxuu leeyahy qur'aanka
nebi laba sifo ilaahay leeyahay la isugu daray ma jirta buu leeyahay nebi maxamed mooyaane ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina allaha binnaasi la ra'uufun raxiim nebiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu leeyahay bilmu'miniina ra'uufun raxiim aayaadkaasi aynu tilmaamaynaa waxa ay sheegayaan mudnaanta uu nebi maxamed ku dhex leeyahay ambiyada dhexdeeda bale qur'aanku nebiyada kale magacoodaa loogu yeedhay yaa nuuxu yaa huudu yaa muusa baa ku soo aroortay ama nebi maxamed ilahay wuxuu leeyay yaa ayuha nabiyu yaa ayuha arasuulu baa u soo aroortay yaa muxamed kuma soo aroorin qur-aanka tashriifan lahu bay culammadu yidhaahdaan marka aynu tilmaamno qur-aanka ku soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ammaantiisa ayaa ammaan ugu filan laakiin weedhahan kale waxaan u soo qaadanayay uun inta aan qur-aanka rumaysnayni ee rumaysan maqaayiis kaloo bini aadamku wax ku qiimeeyaa buu leeyey inaynu u tilmaamno bimaqaayiisikum buu nebi maxamed yahay ka mudan marka lagu eego maqaayista bini aadamka amaa haddii loo baahan yahay nebi maxamed si dhaba loo qadariyo waxa ku filan qur'aan iyo xadiis wixii ku soo arooray walidaalik ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay inuu yahay sayid waladu aadam waxaan ahay buu nebi maxamed leeyahay aadamba intuu dhalay sayidkoodii walaa fakhr faanna kuma jiro bale waxa uu nebigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam aakhiro liwaa'i alxamd keligii inuu shafeeco qaadi doono marka cid walaba ay isdhaafiso shafaacat alkubra inuu isagu yahay maxay liwaa'i alxamdi ka qaadi doona ee shafeeco qaadi doona nusuusta qur'aan iyo xadiidta ka badan weedh bini aadam sheegay oo dhan haddii aynu soo ururino takfiina iyadaa inugu filan laakiin maadaama aad la degantihiin dad aan weli qur'aan iyo xadiid rumaynin waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta france inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidha maalan qaar taariikhda qore qaar ka mida waxay yidhaahdeen 60 milyan may gaadhaynin dadkii yuhuudda meesha lagu dilay cilladu waa maxay daliilkiinnu waxay yidhaahdeen yuhuuddii jarmalka iyo intan degganaydba 6 milyan ma gaadhaynin taariikh ahaan markaannu xisaabinno saa daraaddeed 6 milyan hadda may odhannin lama gubin waxay leeyihin tiradaa inta ka yar ka muslim ahaan aniga hadduu ninkii gubay qiranayo uu leeyahay 6 milyan baan gubay iqraarku dee waa markhaati madoon waa gubteen baynu leenahay dan kama lihin inaan idhaahdo yuhuud 6 milyan lama gubin waxba igama saaraa hitler inuu faashista ahaa ama naazist ahaana murankuma jiro hadday reer yurubku qirtaan oo yidhaahdaan 6 milyan oo dadaannu laynay inkaar baa qabteen baynu leenahay ma waxaan u difaaca ma yaallo laakiin waxaan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo soomaalidu maxay odhan jirtay la jiifiyaano bannaan wadaad baa ul taagay bay soomaalida odhan jireen marka la rabana waxaa la odhan jiray la jiifiyaano bannaan waa la jiifiyaano bannaan sida u taalla miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee waxgaysta malafkiisaa la baadhaayo maalinuu dhakhtar ma tegey dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terroristu ahaa hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma egto idan waa la jiifiyaano bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaad dee ma doodi karaysee maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso
oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga kuwan yaadna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad silada yaan dadku ku garanin saxanka maaha yaa dadku ku garanin koofiyadii idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasuu rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu محمد yahay عليه الصلاة والسلام صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين